barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa inaynu isku dayno inaynu ku jawaabno su'aasha ah sideen uga baxnaa maayir xumada ku soo noqnoqonaysa Somaliland. Sida aynu wada ogsoonahay waxa ina daashaday maayirre aan waxqabadkooda loo bogin muddadaas rubc qarniga ah. Haddaba halka sartu ka quruntay waa habka uu maayirku ku imanayo ama loo soo doorto. Sideese keena inaga Somaliland ahaan uu ku yimaadaa. Habka uu maayirkeenu ku yimaadaa waa laba hab. Hab waa hab qabaliya oo maayirka reer keliya ayaa saami u leh. Habka kalena xildhibaanada la soo doortay dhexdooda ayaa qabiil isu gaashaan buuraysta si ay aqlabiyadda golaha u helaan, dabadeedna ninka ay rabaan maayir u doortaan. Waana mid ka mid ah hababka doorasho ee runtii aadka u liita, isla markaana aan u fiicnayn waddan qarnigan casriga ah jooga. Haddaba ra'yigayaga ka dhalinyaro ahaan waxaanu soo jeedin lahayn in maayirada waddanka lagu soo doorto labadan hab ee soo socda. Habka koowaad, in maayirka iyo maayir ku-xigeenka gobol kasta uu madaxweynuhu toos u soo magacaabo, isla markaana uu ku soo daro digreetada uu madaxweynuhu ku soo magacaabayo golihiisa wasiirada sidii dowladdii Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariiste. Kaasi waa hab. Habka labaad waa kan ugu fiican hababka wax loo soo doorto, waxaana weeye in saddexda xisbi qaran uu mid waliba laba qof soo magacowdo, maayir iyo maayir ku-xigeen u tartama, isla markaana ay maalinba hal xisbi labadiisa musharax ee ka socda ku soo wareegaan degmooyinka gobolkaasi ay ka tartamayaan, iyagoo u soo bandhigaya degmo kasta waxay u qorsheeyeen inay u qabanayaan haddii ay degmadaasi doorato. Ujeeddada ugu weynina waxa weeye tusaale ahaan haddaanu nahay degme Egas waxa aanu ogaanaynaa labada musharax ee degmadayadaasi Egas qorshaha ugu wanaagsan kale, kuwaasi ayaanu markaa anana dooranaynaa.